السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ergeyga gaarka Mareykanka u qaabilsan wadahadalada Xamaas Israel Steve Witkoff ayaa ugu dambeyn galabta ku dhawaaqay in la gaaray xilligii Israel iyo Xamaas ay saxiixi lahaayeen heshiiskii Mareykanka uu soo bandhigay ee gabi ahaanba lagu soo afjaray dagaalka Marinka Gaza. warbixin farxad leh oo cajiib ah ayaan idinkaga hayaa oo aanu qodobka ku dul istaagi doonaa. qodobada sidoo kale galabta barnaamijkan idinku hayna waxaa kamid ah Ra'iisul Wasaaraha Israel Netanyahu ayaa lagu soo waramayaa in maalmaha soo socdo militarigiisa uu diyaariyay dagaal ba'an oo ay ku qaadaan Iran, sida uu warinayo wargeyska weyn ee New York Times oo ka soo xiganaya saraakiil sare oo ka tirsan maamulka Netanyahu. iyana barnaamijka ku maqli doontaa. qodobada sidoo kale aanu barnaamijka idinku hayna waxaa kamid ah xuutiga dalka Yemen oo digniin culus soo saaray, taas oo mar kale khalqal ka abuurtay gudaha Israel. maxay tahay digniintan oo la sheegay inay tahay tii ugu cuslayd oo abid ay dul dhigto xuutiga Israel ayaad iyana barnaamij ku maqli doontaa. qodobka ugu dambeeyana waxaynu ku dul istaagi doonaa war saxaafadeed ay si wada jira u soo saareen dalalka Spain, Ireland, Slovenia, Norway ayaa ugu baaqay UN-ka in xubin buuxda laga siiyo Falastiin qaramada midoobay. ku soo dhawaada kow Somali Media walalaha qiimiga lahow. waa labada bisha Dulqaad sanadka 1446 waa maqribnimo khamiisa ama galabnimo khamiisa xilligay ku tahay wana 29 bisha shanaad sanada 2025 taariikhda miilaadiyada. soo dhawaada aynu ku bilowno barnaamijkeena galabnimo. qodobka ugu horeeya ee ku saabsan ergeyga Mareykanka u qaabilsan wadahadalada Xamaas Israel ayaa sheegay in natiijo wanaagsan laga gaaray oo ay maraysa hadda heer gabagaba ah in la kala sixdo heshiiskii Mareykanka uu soo jeediyay ee ahaa in dagaalka Marinka Gaza gabi ahaanba la soo afjaro isla markaana Israel lagu wareejiyo dadkii laga haystay, iyadoo sidoo kalena raashinkii kaalmada bini'aadanimo Marinka Gaza la doonayo in ay si dhammaystiran u soo gasho. macnaheedu ay tahay in maalin walba 1000 gaari oo mucaawino ah ay soo galaysa Marinka Gaza, iyadoo sidoo kale shidaalkii iyo daawadina loo fasaxayo. waxaana intaa bedelkeeda Xamaas ay dhiibayaan sida warbixinta ku qoran galabta soo baxday 10 kamida dadkii Israel laga haystay iyo sidoo kale 18 meyd oo meydadkii laga haystay Israel dadkooda lagu wareejin doono. 10kan maxaabiis ee nool ee lagu wareejinay Israel waxa ay noqon doonaan shanta ugu horeyso maalinta ugu horeysa heshiiska, iyadoo shanta kalena la wareejin doono maalinta ugu dambeyso 60ka maalin ee xabajoojinta. Israel ayaa markii hore heshiiskan gabi ahaanba ku gacan seertay. Ra'iisul Wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa waxa uu ku sheegay heshiiskaas inay tahay mid aysan Israel gabi ahaan aqbali doonin, iyadoo markii dambe ay Mareykanka isku dayeen in lagu sameeyo heshiiska wax ka bedelaad, iyadoo lagu soo daray qodob gabi ahaan Xamaas ay diiday, kaas oo ah in Israel markii ay doonto 60ka maalin oo xabajoojinta ku meel gaarka kadib dagaalka ay dib u bilaabi doonto. macnaheedu wuxuu ahaa heshiiska 60ka maalmood markuu dhamaado. qorshaha markii hore Mareykanku uu soo jeeday wuxuu ahaa 60ka maalin gudahood oo xabajoojintu ay socoto Israel ciidankeeda inay banaanka la baxdo, Marinka Gaza ay banaanka la baxdo, oo labadii bilood ka hor xabajoojintii ay dib ugu soo noqotay meeshii ay joogeen inay geyso. labada bilood ama 60kan maalmood gudahooda sida heshiiska ku qoran in Israel iyo Xamaas labadaba laga wada shaqeeyo, Mareykankana uu qayb ka noqdo, dalalka Qatar iyo Masar ay qayb ka yihiin in laga taliyo dagaalka xabajoojin rasmi in looga gudbo. kadibna Israel inta dhiman 10 kale oo kamida iyo 10 iyo dhowr waxay noqoto dadka laga hayay in loo soo daayay, isla markaana kubanaan ku jira xabsiyada Israel oo reer Falastiin in la soo daayo. waxaa markaa iyana garab soconaysa kaalmadii oo ku qulqulaysa Marinka Gaza 60kaas maalmood, kadibna Gaza oo dhan ay noqonaysa meel ka madax bannaan militariga Israel. gabi ahaanba Israel ay ku noqoto meelihii ay markii hore ka soo duushay. heshiiskaas waxaa diiday Israel, waxaana lagu soo daray markaa kadib qorshe dhahaya 60 maalin kadib Israel markii ay doonto ay dagaalka bilaabi kartaa. qodobkaas oo ay Xamaas mar kale iyana diiday. maalmihii la soo dhaafay qodobada ayaa la isku mari waayay. ugu dambeyn Witkoff sida Al Jazeera ku qoran galabta waxa uu leeyahay hadda waxaa la diyaaray paperski ama waraaqadii in ay saxiixaan Israel, Xamaasna ay saxiixdo
dagaalka marinka qasi rasmiya loo joojiyo laakiin lagu bilaabay 60 maalin oo ku meel gaara 10 maxaabiis oo la wareejiyo 5 marka hore la wareejiyo iyo 5 kale lagu xijiyo 18 meyd oo la wareejiyo iyo kadib dadka la hayo meyd iyo wixii nool oo la wada wareejiyo iyo Gaza oo markaa noqotay meel ka madax bannaan militariga Israa'iil waa rajadii ugu waansanayd ee ka soo yeertay marinka Gaza tan intii uu bilowday dagaalka laakiin waxaa lagu waramayaa sida ay warbaahinta Israa'iil sida Jerusalem Post, Times of Israel iyo Diot Anot iyo kuwa kale ay qorayaan caawa ama maqribnimadan waxaa kulan degdeg ah yeelanaya golaha wasiirada Israa'iil oo shir gudoominaya Netanyahu qodobada ay ka wada hadlayaan ayaa waxa ugu weyn baa la leeyahay heshiiskan iyo sida ay u hirgeli lahaayeen iyo waxa faa'iido Israa'iil ugu jiro waxaa la filayaa saacadaha soo socday maalmaha soo socdo ilaa iyo berrito in heshiiskan saxiixiisa la qalinka lagu duugo sidaasna Gaza ay ku noqoto meel ka madax bannaan ciidanka Israa'iil ugu yaraan 2 bilood oo xabajoojin ah kadibna xabajoojin rasmi ah iyo raashinkii oo ay dadku Gaza helaan baahi daran ayaa laga soo waramayaa guud ahaan inay marinka Gaza ka jirto waxaa shalay si yaab leh UN-ka uga dhaxalay ergeyga Falastiiniyiinta u jooga qaramada midoobay oo runtii si yaab leh uga dhaxalay xarunta UN-ka dad badanna ka oohinsiyay si qiiro leh ayuu u hadlay khudbad uu halkaas ka jeediyay ergeygaas ergeyga waxa uu sheegay isagoo sawirro qaadanaya oo muujinaya dhibaatada dadka reer Falastiin ku haysata bariga dhexe gaar ahaan marinka Gaza waxa uu tusay dadka caruurta reer Falastiin dhibaatada ay ku jiraan iyo sida loo baabi'inayo kelmadaha dad badan ka oohinsiyay markii uu isaga khudbaynayay uu loo ooyana waxa ka mid ahaa in uu yiri caruurta reer Falastiin 2 dhibaato oo waaweyn ayaa baabi'isay oo markaa noloshooda aad u dhibaataysay dhibaatada koowaad waxa uu ku sheegay inay tahay baahi muddo badan ayaa raashinkii iyo nafaqadii laga jartay waxa uu yiri waxaan ahay awoowe waxaan ahay waalid waxaan dareemi karaa dhibaatada iyo xanuunka caruurta reer Gaza ay dareemayaan isagoo ooyay ayaa waxa uu sheegay in caruurta reer Gaza ay baahi u dheertahay in la gubay qaar badan oo kamid ah nolosha lagu gubay kadib markii militariga Israa'iil xarumihii ay joogeen iskuuladii iyo goobihii ay ku soo qaxeen toodooyinkoodii lagu dhex gubay waxa khudbada mid aad ugu dhow isna jeediyay ergeyga ama ninka u matala UN-ka dowladda Algeria safiirkeeda ayaa isna si yaab leh u hadlay hadal qiiro leh halka ka jeediyay si kastaba ha noqotee waxay hadda u muuqataa indhaha caalamka inay ku soo wada jeesteen Israa'iil oo aragtidii dadweynaha caalamka dad markii hore la jiray magac laha dowladda markii hore Israa'iil taageersanaa wixii oo dhan inay kala noqonayaan taageerada iyadoo gudaha Israa'iil Netanyahu loogu baaqayo in uu qaato qorshaha loo soo jeediyay Yair Lapid oo ah hogaamiyaha mucaaradka Israa'iil ayaa waxa uu sheegay haddii Netanyahu uu doonayo dadka Israa'iil laga haysto in loo soo daayo waa inuu aqbalaa qorshaha heshiiska haddii kale waxa uu sheegay dadka Israa'iil laga haysto in naftooda halis ay ku jirto waxna aysan macno soo kordhinaynin in maalin walba Israa'iil ay guryo burburiso caruur iyo dumarna ay marinka Gaza ku layso taas oo gabi ahaanba shuruucda caalamiga iyo mid bani'aadamnimada ka hor imaanayso way saaxiibada qiimiga loo qodobka markaynu meesh uga gudubno heshiiska marinka Gaza oo hadda rajo weyn laga leeyahay iyo saacadaha maalmaha soo socdo oo aad maqli doontaan in heshiisku hirgalay maadaama Netanyahu dhinac walba culays laga saaray iyana halka ayaan uga gudbeynaa wixii ku soo kordho waynu dul istaagi doonaa waana farxad kamid ah farxadii ugu waaweynaa ee maalmihii ugu dambeeyay ka imanaya Gaza qodobka xiga barnaamijka waxa inoo soo socda qodob muhiim ah oo ku saabsan Netanyahu wargeyska New York Times warka uu ka qoray oo mar kale bariga dhexe cabsi weyn ka dhalinaysa taas oo ah in Israa'iil ay doonayso inay weerarto maalmaha soo socda Iran taas oo khubaradu ay war yaab leh ka soo saareen waan isla eegi doonaa muxuu ka qoray New York Times xaguu ka soo xigtay laakiin aynu ku bilowno xoutiyiinta dalka Yemen weerarkii Israa'iil ay ku qaaday airportka Sanaa oo ay burbur weyn gaarsiisay kadib xoutiga dalka Yemen waxa ay soo saareen maanta digniin la sheegay inay tahay tii ugu adkeyd waxa ay yiraahdeen Israa'iil waxa ku soo socda xagaayga kulul waxa la yiraahdo oo macnaheedu waxay leeyihiin xagaaygan iyo maalmahan soo socdo Israa'iil waxay la kulmi doontaa weerar aysan taariikhdeeda maqlin oo aysan arkin waana cabsi weyn baa la leeyahay xuutigu maxay sameyn doonaan waxay hore xuutigu la soo baxeen
weeraro aysan Israa'iil iyo Maraykan weligood ku xisaabtamin iyagoo isticmaalay drones iyo gantaalo aan la malaynaynin nuuceeduba inay haystaan. laakiin hadda hubka ay la soo bixi doonaan iyo sawaariikhda ay ku tuuri doonaan maxay noqon doontaa lama garan doono. gudaha Israa'iil hadda waxaa ka socda la leeyahay ila sirdoon iyo macluumaad raadin iyo sidoo kale kulamo ay yeelanayaan militariga Israa'iil saraakiisha ugu sareysa oo laga wada hadlayo weerar nuuc ay Xuutiga soo qaadi karaan oo ay uga jawaab celin karayaan weerarkii lagu qaaday airportka Sanca oo burbur weyn u gaaray. Xuutiga ayaa la sheegay in lagu garanayo marka weerar nuucaas oo kala lagu qaado in ay ka jawaab celiyaan oo ay bixiyaan jawaab adag. si kastaba ha noqotee weeraro hore ay Xuutiga ku qaadeen airportka Ben Gurion ee gudaha Israa'iil gaar ahaan ku yaala duleedka Tel Aviv ayaa la sheegay inuu burbur weyn gaarsiiyay weeraradii Xuutiga. sidoo kale Haifa iyo Eilat ayaa lagu waramayay iyada laftirkeeda weerarka Xuutiga inay hore waxyeello weyn u gaarsiisay oo ay ugu noqotay. waay wixii arrimaha ku soo kordhay iyo Xuutiga Israa'iil weeraradooda oo la sheegay heerkii ugu sareeyay inay marayso iyana waan isla eegi doonaa intaynu u gudbin labada qodob ee ugu dambeeya barnaamijka ee kala ah. New York Times oo warbixin yaab leh ka qoray dagaal hadda Netanyahu isku diyaarinayo maalmaha soo socda inuu ku qaado Iran oo uu Maraykan ka madax banaan yahay iyo sidoo kale dawladaha Spain, Norway, Slovenia, Ireland, Spain baaqi UN-ka ay u direen. laakiin marka hore aynu ku yaraa kana walaalaha qiimiga lahow. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي ومعن علي مامولها مدرسة إمام نافع وحن إذن كوب بشارين إن قاضنا إنه أرض عصب يفصل عصب ولا الله خير جل وحن ليه كسيد هذا قاع مفورة هذا ولا لها قيمة له كفى إذا فرصة أيدين صوب بدكتين بعد كإمام نافع وحكو قد يرى معلمين قبردي ويارق مولى برست القرآن الكريم كا بعد كوحا يكو بريان سيد الله قرأ قرآن الكريم كا سيد الله أخريو waxay sidoo kale ubadka ku barayaan tarbiyada iyo aqoonta saxda islaamka. haddaba ka faa'iideyso oo la xiriirso ubadka lagu baro ducooyinka ay akhrisan lahaayeen xilliga ay soo kacayaan, xilliga ay seexanayaan, xilliga ay guriga ka baxayaan. la xiriir taleefanada iyo nambarada shaashada kaaga muuqda. internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah ku hadal iyo IPTV ula socda receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal. internetka guryaha ku shubo $25 oo hel internet xawaarihiisu yahay 20 megabyte per second iyo 200 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ah ama ku shubo $30 oo hel internet xawaarihiisu yahay 30 megabyte per second iyo 200 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ah. internetka xafiisyada ku shubo $50 oo hel internet xawaarihiisu yahay 55 megabyte per second iyo 400 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ah ama ku shubo $90 oo hel internet xawaarihiisu yahay 110 megabyte per second iyo 700 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ah. waa rajaynayaa walaalaha qiimiga leh inaad qorateen oo aad la xiriiri doontaan. waxaynu soo gaarnay qaybihii ugu dambeeyay barnaamijkeena maqribnimo. aad baan kaaga mahadcelinayaa haddii aad ka mid tahay walaalaha channelka ku xiran. haddii aadan weli ku soo biirin fadlan ku soo biir oo subscribe dhee wixii macluumaad ah halkaas nagu wadaag. labadan qodob ee ugu dambeeya barnaamijka waxaynu ku dul istaagi doonaa sida uu qoray jaraa'idka New York Times ee ka soo baxa Maraykanka. waxa uu ila u dhow ra'iisul wasaaraha Israa'iil isla markaana saraakiil sare oo ka tirsan maamulka Netanyahu ay ku waramayaan in Israa'iil hadda isku diyaarinayso weerar maalmaha soo socda ay ku qaado gudaha Iran, taas oo horay toddobaadkii hore Trump uu uga digay Netanyahu inuusan isku dayin inuu qaado weerar noocaas oo kala ah oo Iran uu ku weerarayo xilligii wada hadaladii Maraykanka Iran ay socdaan meel wanaagsan lagu waramayo in ay marayaan. Iran iyo Maraykanka ayaa ka wada hadlaya sida Iran uga tanaasulahay lahayd sameeyshada hubka nukliyeerka. Iran ayaa sheegtay inay diyaar u tahay inay ka wada hadasho ama ay ka tanaasusho sameeyshada hubka waxgumaada ee nukliyeerka waa haddii loo maro waddo diblomaasiyadeed iyo dariiq sax ah. laakiin waxa ay sheegtay marnaba inaysan ka tanaasuleynin sameeyshada nukliyeerka midkiisa nabadda ah. laakiin Israa'iil ayaa gabi ahaanba waxa ay diidan tahay Iran inay haysato nooc walba oo nukliyeer ah. waxayna sheegtay sida kaliya ay ku qanci kartay inay tahay in Maraykanku soo faragishto isla markaasna gacantiisa uu ku burburiyo warshadaha hubka nukliyeerka ee Iran la sheegay dhulka hoostiisa inay ku yaalaan. Israa'iil ayaa lagu waramayaa in hadda qorshaha weerarkan ay damacsan tahay uu yahay in ay weerarto warshadaha nukliyeerka Iran, taas oo la sheegay mar kale xiisada bariga dhexe inay gaarsinaysa meel adag oo qaraar.
dagaalkii ugu darnaana suurtagal inay tahay mar kale inuu ka qarxo bariga dhexe. Israa'iil ayaa hadda u muuqata inay ka farxalanayso dagaal ay ka soo dhamaanayso dhanka iyo Gaza waa haddii heshiiska la saxiixo hadda meel wanaagsan marayo. kadibna waxay hadda isku diyaarinaysaa dagaal ay la gashay Iran, taas oo ay khubarada ku sheegeen inay tahay in Israa'iil markani ay qasaaro iyo culays weyn lugta la gali doonto. labada dhinacba waxaa la sheegay dagaalkan inuusan wax faa'iido ah ugu jirin, laakiin Netanyahu ayaa u muuqdo dagaalkan inuu yahay mid ku dhex nool oo sida ay ku eedeynayaan mucaaradka gudaha Israa'iil inuu doonayo inuu ku dhex noolaado dagaalada ka socda bariga dhexe. wixii dagaalka ku soo kordhayana barnaamijyada dambe ayaad ku maqli doontaa. qodobka ugu dambeeya barnaamijka, dowladaha Spain, Slovenia, Norway ayaa waxa ay soo saareen iyo Spain, Ireland in la aqoonsado isla markaana ergey UN-ka ay loo soo diro Falastiiniinta. ergey Falastiiniinta ka socda waa in UN-ka uu ogolaado in reer Falastiin ay ku yeeshaan. dowladahan ayaa intooda badan u ololeeyay in la helo dowlad Falastiin ay leedahay oo la aqoonsado oo caalamka ka jirto, iyagoo sheegay Ireland iyo Norway iyo Spain inay aqoonsadeen dowlad Falastiin ay leedahay. hadda dunida waxay u muuqataa in loo kala tartamaya in la aqoonsado dowladnimada Falastiin dagaalkii marinka Gaza kadib, taas oo la sheegay diblomaasiyad ahaan in uu yahay qasaarihii ugu weynaa Netanyahu uu soo jeedo Falastiin. tan oo macnaheedu ay tahay in ay muuqanayso markii ugu horeysay in reer Falastiin ay yeelanayaan dowlad caalamku aqoonsan yahay oo halkaasi ka hirgasho. si kastaba noqotay, dowladahan hadda baaqooda waxa uu si gaar ugu socday in ay muhiimad gaar leedahay in ergeyga UN-ka ay ku lahaato Falastiin oo markaa xubin joogta ah uu noqdo, taas oo caawin karta bay leeyihiin qadiyadda reer Falastiin inay gaarto meel ka sarreysa meesha maanta ay marayso. saaxiibaday walaalaha qiimiga leh, barnaamijkii galabta aad kala socoteen Kow Somali Media inta ayaanu ku soo gabagabaynaynaa. inta aynu kulmayno barnaamijkan mid ka xigo, dhammaantiin waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyada Ilaahay dushiina ha ahaato. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.